Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Xikmadda ayaa waxay tahay inaad garato waxaad qabanayso. Xirfaduna waa inaad garato sidaad u qabanayso. Hase yeeshee geesinimada ayaa waxay tahay inaad u istaagto qabashadeeda. Balse haddii aad jeceshahay kaliya inaad qabato oo aan dhaqaaqi jirin, cimrigaaga jecel ayuu ku dhammaanayaa. Aamusnaantayda kama tarjumayso inaan ahay qof daciif ah, balse ma rabo inaan la murmo qof aan i fahmaynin. Halka aan ka soo jeeday iyo duruufaha nagu xiran waxaa laga yaabaa inay saameyn nagu yeeshaan naftaada, laakiin adiga ayaa mas'uul ka ah qofka aad noqonaysid. Labiska gabadhu wuxuu ka tarjumaa tarbiyada aabaheed, dhowrsanaanta hooyadeed, masiirka walaalkeed iyo ragnimada ninkeeda. Taasi waa sababta loo yiri Maryama bintu Cimraan: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بقيا. gabariyay muslimada ahayd, xijaabkaaga waa sharaftaada, waa qiimahaaga, waa karaamadaada. Hadhigin marnaba rabbiga Maxamed abuurtaan ku dhaartay, way liibaantay gabadha maanta xijaabkeeda ku dhegnaata. saaxiibayaal, maanta muuqaalkina halka ayuu ka egyahay. intana ku kulmi doono tan iyo muuqaalkina xiga. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.